harkan waxyeelaadii dhaqdhaqee caalanka dhidbaysow maa soo dhicine manta waa mahad ilaahi maanta dadkii midowye maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ضمان أخيارتا أضياشا دلنيردا هويوينكا قبلها عرورتا انتي سومالي أو ميشان كسوق بشمانتا waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkii waxaa la ii doortay maanta inaan aniga ka noqdo hogaamiye oo hawshaan aan wado waxaa la ogaayay in dadka dhallinyarada loo yeero oo la yidhaahdo maaragtay bal barnaamijyada hogaamiye laakiin maadaama arrintanu ay ka fac weyn tahay ay maaragtay lixdankii laga hadlaayo iyo waqtigii mataqaanaa muxuu ahaa sheeg xornimada la qaatay laga hadlaayo waxaa loo baahan yahay dad munaasabadaas cabiri kara inay meesha soo istaagaan marka saa darteed waa ku mahadsan yihiin dadkii iyo mataqaanaa maxaan sheeg ii doortay arrintaas kow tan labaad waxaan u mahad celinaynaa dadkii xafladdan soo qabanqaabiyey oo muxuu ahaa sheeg barnaamijkan soo furay aan u mahad celinaynaa iyo intii ka soo qayb gashay oo idilba waxaa markaa adan halkan jooga meediyaha oo uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo faarax yaasiin cusmaan iyo fanaaniin ay ka mid yihiin axmed xeef xiis cabdi madar iyo yaxya u k iyo khadar dheere ilka case oo asagana ka socdo all puntland marka hadda barnaamijkaan gudagelaynaa waxaan u yeeraynaa ninka la yidhaahdo ama sheekha la yidhaahdo bulshaale xasan bulshaale oo ayadii qur-aanka noogu furo insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الله inuu anfaco ayadaas qur-aanka oo noo qoriyo bulshaale qofkaasi haddii oo la yidhaahdo maanta waa lagu xoraynayaa oo xor baa lagaa dhigaya maalinkaas la xoreeyey oo xor laga dhigay ma garan kartaan dareenka uu qabi doono iyo sida uu u qiimeyn doono maalinkaas iyo maskaxdiisa aahaarta ay ku reebi karto iyo qalbigiisa marka saa darteed marka annaga marka maalinkan munaasabadan aan u dabaaldegayno taasay nooga dhiganta isticmaal baana haystay waddankeennii soomaaliyeed 5 meel baa loo qaybiyey 5tii meelood 2 ka mid ah ayaa maalinkaasi biidni illaahi alkariim israacday oo samaysatay hal jamhuuriye oo la dhihi jiray jamhuuriyadda soomaaliya marka habeenkaas 60kii oo calanka la saarayay waxay ahayd farxad weyn qof kasta oo soomaali ah dhalinyaro ha ahaado oday ha ahaado waayeel ha ahaado dumar ha ahaado maalinkaas farxad ayay u ahayd 6 saac habeennimo waad garan kartaan 56 sano maanta laga jooga 56 sano ka hor adduunyada sida ay ahayd 6 saac habeennimo qof soo jeedi karo yani waad qiiman kartaan marka waxaa loo soo jeeday waxay ahayd in maalinkaasi nin walba markhaati uu ka ahaado oo joogo calankaas sida loo saaraayo kii la dejinayo loo dejinayo marka waxaan rabaa marka wax yar clip yar oo maalinkaas munaasabadaas ka mid ah oo 2 daqiiqo socon doonto inaan idin tuso kabacdi idin dareensiiyo wax ay tahay kadibna haddii rag odayaasha meeshan fadhiyo ayaa markaa hadhowda sharaxaad ka bixin doona insha allah taasoo shacaba oo waqtigaas la joogo soo baxday oo u soo baxday maalinkaas inay dabaaldegaan u dabaaldegaan u sacbiyaan u dabaaldegaan waa kaas calanka ingiriiska la dejinaayo waa gobolka waqooyi halkana waa calanka talyaaniga oo la dejinaayo koonfur kadib waxaa ku xiga calankii soomaaliya oo la saarayo
marka waad garan kartaan ilmaha yarka meesha jooga say u faraxsan yihiin dadka say u faraxsan yihiin macnaha waxa waaye maalin weyn waay waa ka calanka Soomaaliya saaray calanyahow tilmaawa camba midabkaagu taamku yaho ciddigtiina tirinaysa dhexda kaaga taale Soomaaliye toosoo isku tiirsaday hadbatiina taagdarani taageera weligii waxa aan la oyhayo ilmadu iga qubanayso akhtiyaarni loo diido la adoonsadaanahay Soomaaliyey toosoo isku tiirsaday hadbakiina taagdarani taageera weligii markii aan ka soo degay cadan Aden Airways Hargeysa shuux baa da'ayay galabtii aadan cadde Allah u naxariistay baa yimi xamar ka yimi oo calanka wax ka saarayay galabta subax galabay shuux baa da'ayay marka rooba meel siiga weyn oo banaan oo garoon caruur kubad ku ciyaari jirtay baa calanka Ingiriiska oo tima cadde leeyahay bal sidoo yahan aan eege kan nasiib kan nasaar sameeyo sareeyo ma nusqaamo kan nasiib kan nasaar ragii waqtiga joogay anoo maanta 18 jir ahaa baad maanta haddana alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay igu gaarsiiyay inaan maantana soo taagnaado anoo caafimaad qabo oo ka qayb galo xafladan oo kale waa mid mahad leh waxaan marka idin sheegayaa wadankaas dadkiisa waad aragtaan sida maabkaas daloolka godka laga waxeeyay dhulka inta waa la baxay bala la baxday dhulkiis haystay wadanka markii la qaybiyay sidaanu history ku dhigan jirnay iyo maanta wuxuu ku sugan yahay raggii markaa yaraa ee 13 ahaa ee xornimada u dagaalamay 13 maanta halkoodii taagan oo u dagaalamaya ma hayno markaynu runta isu sheegno wiil miyi qoys reer miyi u dhashay baan ahaa anugu ma ahayn ragga soo gaaray waxaan ahaa caruurtii calanku dushooda la suray baan ahaa waxaan ahaa kuwii nasiibka lahaa oo calanka korkooda la suray waxaan u soo joogay guulo waaweyn oo Soomaalidu leedahay waxaan aad u jecelahay marka runta laga hadlo Soomaalida iyo taariikhdeeda iyo luqadeeda maantana halka waxaan isu soo taagay oo kaliya farax inaan idin la wadaago anugu waxaan ogahay qeyradii hore oo Soomaalida iyo heesihii wadaniinta ahaa maadaama saxwadaas iyo waxaas dhagaha la iga buuxiyay markaan caruurta ahaa markaan hees wadanaya maqlo anugu waa qeyrooda maantay baan waxaan ku sii sheekaysanaynay marar badanna aan jeclaaday in yar makrofonka inta arintu bilaamayso waan ka xishooday aan iraado war ii dhiiba dadka aan sii maaweeliye magowdo golladii candhaha marise magowday oo candhadii gollaha marise aan maanlo hati hasheena maadeeq caruurtii ku soo barbaartay baana makeeki hare hay maasheye an maalo hashe dhammaanteeqe khayraadka dalkana gooni baa loo xisaabiya khayraadka dadkana gooni baa loo xisaabiya khayraadkii dalkeenna weli ma baynu taabane khayraadkii dadkeenna wuxuu ku imanayaa wacyigelin iyo aqoon la qaato sidee loo ilaashadaa dawladnimo aan su'aal idin weydiiyo dhamaantiin inta meesha fadhido laakiin ragga odayaasha meesha waa ka reebaya laakiin intiinaan galay markii heesta la qaaday ee la wada istaagay ee la wada saxbinayo jirkiina soo noqday jariraco dibaax maxay tahay micnaheeda marka waxa waaye qiiro adiga kugu jirto waa qiiro kugu jirto waa loo baahan yahay in laydin dareensiiyo waa loo baahan yahay in laydinkaga sheekeeyo waxaan ka hadlayaa dadkiinaan ama gabdhaha ama dhalinyarada waa loo baahan yahay in laydinkaga sheekeeyo sababto waxaa ma dareemaysaan raggii dareemi lahay waa kuwaan ahaa oo markhaatidu u ahaa oo soo arkay
ayaga koleyto inta dhiman waa idinka sheekayn doonaa laakiin waxaan rabnaa annaga iskuulaadka markaan dhigan jirnay heesaska waddaniga ah waa naloo qaadi jiray maalmo gaar ahaan lahayn maalan maalinkii caalamka oo kale maalinkaas iskoolka cashar ma jirin sida idinka aad dhahdaan emna u oo kale ayaa maalinkaasi iskuolka waxba lama dhigin jirin waa la imaanaya keliya waxaa la qaadi jiray heesaskii oo calanka iyo heesaska waddaniga keliya taasi micnaheed waxay ahayd in ardaydaasi maskaxda laga geliyo qalbigooda la geliyo la jeclaysiiyo qiimaha uu leeyahay waddankooda adduunyadan qolaa ku taagani talabaan ku dhaartee wadano ma tooseen talabada adduunyada kolba qolaa ku taagani talahaan ku dhaartee wadano ma tooseen katashada cadaawo isku tiirsanada katashada cadaawo isku tiirsanada waxaa la baabi'iyey wax qabiil la yidhaaho daakhiliyada markii la gaaray 56 waxaa la dhisay dowlad daakhiliye la yidhaaho oo barlamaan ah barlamaankaas wuxuu ka koobnaa 60 qofood xildhibaanada 60 bay ahaayeen iyo 10 ajnabi ah 10ka ajnabiga ah dadka waddanka degan ganacsiga kule yaa la siiyey 4 talyaani baa lahaa 2 carab baa lahayd 2 hindi baa lahaa 2na bakistaan talyaani wuxuu ku talagalay inuu hor istaago gobonnimada leegada ay wadato inuu hor istaago muxuu ku hor istaagayaa 10 asagaa meel dhigtay 60kiiba wuxuu u samaystay mindhaa 10 xisbi oo mid walbaba intuu lacag ku qufay meel walba ku daadiyey waxaa ka sii darnayd 60kiiba wuxuu sameeyey kuraastiibuu meeshii uu asaga u malaynayo inuu wax ka helayana ku badiyey meeshii leegada wax ka qaadanaysana ku yareeyey maxay tahay sababta xamar 1 kursi buu ka dhigay buurha kabana 5 kursi buu ka dhigay maxaad garan kartaa meeshaas in leegada kuraasta ayna waxba ka helin taas waxaa ka sii darnayd ilaa geeska iyo gees Soomaali meesha jirtaba xisbi taageero talyaani baro talyaani yiraahdo jiray oo ka soo horjeeda leegada aakhir 60kii 56 doorashadii ahayd oo 60 ka ahayd waxay ku fadhiday xisbigii u kuraas bata inuu dawladnimada qabto haddii dadkii asaga uu watay oo 10 meel u taala 60kaana 30 uu ka rabay haddii ay heli lahaayeen annaga dawlad ma rabnay ahaynada gumaysigan wali ku dambayn lahayn 60kii kursi leega waxay ka heshay 43 يعني قول بي واحد لا قول بي واحد أفرتني سدح مركز شات الياني كبير سقاطي سمري داخلية نسيدي بالو لسي هل جن كوحوها لما بوجا لوك ولا قري جري تك بوجنا وحال اللي جري رجستر نير أو بوجا مذو بوجنا وحوها كي عدا نكي سؤال جما جليجر ninkii leegaho wax la yeelana wuxuu ku dhaaran jiray 60 intaas yar isxusuusinaya hadiis dhaqaajin ma sha Allah sidoo noo sheegay oo daahir warun waqtigaas xornimo lama heleen haddaan hal u la naqan hadda ma naqan karnaa hadda ma naqan karnaa maya maxaa diidaa maya maxaa diidaa waa ognahay
ها لكن إلهي حقي مكاه أنا ابن آدم أدانا هاي واسح لكن إلهي حقي كمان إلهي توفيق هنا وافجيو إلهي هنا قد كويس راعة إلهي قلبي أنا برعة السمريو إلهي دتكي كديس دتكي كهرين هنا قد على كان الصوماليات مركي لسميي كودي لوليو لسميي كوني سقال بقول إيه لحدكي لسميي waxaa jira sharcigi la sameeyay sharci baa jiray loo sameeyay waxaan deenishka u yaqaanaan oo ay sanad walba xusaan qulooga ay yiraahdaan afka deenishku yiraahdaan annagana waxaan loo sameeyay sharci aan leenahay oo loogu talagalay in calankeena lagu ilaaliyo qaybaha wadanka Soomaaliyeed ka maqanna loo halgabo waxa ku yaalay haddaan tusaale ka soo qaado dawlad kasta oo qabsata madaxweyne kasta oo yimaada dawlad kasta oo qabsata waxaa laga rabaa inay halgan u galaan qaybaha Soomaaliyeed ee maqan taas ulajeedadoodu maxay tahay ulajeedadoodu waxa weeye taas Soomaaliya in loo baahan yahay mar walba inay aruursan tahay hadda federation baa dhacay halkaan waxba laga sameeyay halkaan qolaa laga sameeyay laakiin mid baa naga dhaxaysa run ahaantii oo qolo walba ka dhaxaysa waxa weeye waa calanka Soomaaliyeed weeye waxaa jirtay maalin aan soo marti qaaday dad waalidiina waxaan saaray calankii Soomaaliyeed oo masawira ayaan saaray dadka meesha fadhiya ilaa iyo sodomeeyo waa ahaayeen waxay bilaabeen run ahaantii kala barobar inay oohin la fariistaan meesha anu waa yaabay moogta see u dhacday ma ayadana maarta aad ooydaan waxaad u ooyeysaan maxay yihiin waxay yidhaahdeen waxaan ogaanay mid baa igu tiri qof ka mid ahaa waxaan ogaanay inaan calan Soomaaliyeed aan leenahay inaan wadan leenahay inaan wadankeena aan u jeedo suu eka aniga lafteeda runtii waxay ugu abuurtay inaan bal sida maartay geeskayga inaan ka booyaabaan u maleynahay moogta laakiin mar ina dhacday in kala shaka iga jira hadda marka waxa weeye Soomaaliya wadankeena Soomaaliya waa wadan naga wada dhaxeeya waan u wada baahannahay federation hala sameeyo wax walba hala dhiso midda loo baahan yahay waxa weeye haddaan rabno inaan meel gaarno waa inaan dawladdeena aan garab istaagnaa dawladda jirta waa inaan la garab istaagaa dawladdii timaadana la garab istaagaa waa mid muhiim ah weeye haddaanan samaynin oo mid walba yiraahdo anaa qabsanahay qaybta wax soconaya ma jiraan taas intaas weeye midda aniga aan rabo inaan culeyskayga weyn aan saaro waxa weeye Soomaali baan nahay waxaan degannahay Denmark maadaama aan degannahay dhaqankeennii diinteennii iyo hidaheennii xagee buu maraya afkeennii hooyo xagee maraya waxaad arkaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed intooda yaryar markay rabaan inay wada hadlaan ama qof kale waalidkood la hadlaan inay afka Deenishka kula hadlayaan dhaqanka waxba kama yaqaanaan hadda waalidiin ma canaananayo hadda labadeeda wiil Soomaaliga si fiican uma yaqaanaan laakiin mid ka yaro dhaqanka waxaad moodaa aniga hadda inay iga badinayo sababta asaga ayaa isku dayay inuu barto garanaysa marka Denmark baan degannahay laba waxyaalood baan looga baahan yahay mid waa mid in aanan dhaqankeena diinteena iyo hidaha aan leenahay inaanan ka fogaanin iyo afkeena hooyo waa inaan haysanaa taas waxa garab cararaysa bulshada aan ku noolahay inaan ka faa'iideysano haddaanan dawlad aanan ka muuqanin bulshada aan ku dhex jirno haddaanan ka muuqanin weligeen waa maartay banaankan ka istaagnaanina oo wadanka ku dhashay baa noo jooga caaway waxa munaasabada ay tahayna qaarkood ma yaqaanaan marka idinku horaaliya waxaan rabaa inaan dhowr kelmadood Danish u sheego ilmaha yararka oo meesha maanta caawa ka faa'iideysanaya qaar baan ogeyn waxay horta meesha u fadhiyaanba xoogaa xagga mootahay sababta waxaan la hadlayno waa dhalinyarada weeye ta kale qodbadeeda macnaha waxay ku saabsan tahay waxa weeye odayaashii waxay noo sheegeen wixii 60kii xorriyadda aan u qaadanay calankiisii aan u qiimeynay dawladdan dhisanay af Soomaaligan ku hadalay gabayadan akhrinay bay noo sheegeen odayaashu laakiin muhiimadda waxa weeye marka macnaha sidee ugu gudubnaa marka oo generationka cusub oo mar tacsiin oo tala ma ahan wana macnaha maartay dadka generationka cusub ee laftooda ay sii bilaabaan sii wadaan hawshan ka hartay macnaheedu waxa weeye macnaha dhalinyaradu u istaagtaa
in ay macnaha odayaashii meesha keeneen ka sii wadaan waxa marka la wadayana mar walba waxa dad baa wax keena dad baa sii wada marka annagu waxaan rabnaa in sii wadno macnaha runtii waa very important aad muhiim u tahay taas jeg vil bare sige et par kort på dansk fordi jeg tror der er mange unge og børn der er været med i aften med vores store dag som hedder 1. juli det er nationaldag det er den dag vi har fået selvstændig i Somalia så derfor vil vi fejre i aften og grund til at vi fejrer det er for at huske vores generation gammel generation som har kæmpet til at vi står i dag her og har en flag har en regering har et land forhold til kolonien så vi har sagt til farvel til koloni og så siger vi ja til vores nationaldag så det er bare sådan kort derfor vi sidder her i dag derfor vi samler her i dag intaas macnaha waa intii dhalinyarada aan ku goobin lahaa danish u sheegi lahaa runtii Aarhus magaalada la yiraahdo waa magaaladeena kulligeen aan ku wada noolayn reer Aarhusna macnaha maartay runtii Soomaalnimada ku intahay qiimeeya taas keenaysa caaw intaas oo qof macnaha maartay aan wada taaganahay oo aan u taaganahay macnaha Soomaaliya ha noolaato dadkuna markaas waxay ahaayeen wadanka anugu imid dad walaala ay ahaayeen kulligood oo dhan dad wada dhashay bay ahaayeen oo qofna qof kale qabiil ku eriyoonayn ama qabiil ku sheegaynin oo lala kala dhuumanahay yuu yahay xataa lama dhahaynin markaan uu dalka imid 60kii wuxuu ahaa wadan degan oo fiican oo aad iyo aad u fiican buu ahaa laakiin anigu idin ma dhahayo waxaan soo galay halgankayga aan galay waxa ugu horeeyay markii aan history-gii bilaabay oo history-gii arkay wuxuu Soomaaliya say u shaqaynaysay iyo arrimaheeda iyo dhibaatadii ay soo martay waxay ahayd inaan maartay aan talaabadii ugu horeysay aan qaaday waxay ahayd inaan arkay maartay inay ilaa haweenku ay noqon karaan dad taariikh dhigaya oo taariikh ka tagi karaya anigoo wali gaarin Timir Ukaash iyo waxay qabatay haweenka Soomaaliyeed dahabkooda iyo taariikh ahaan baan u akhristay laakiin ma aanan arag oo waxna lama aanan qaban mana aanan u imaan oo ma joogin wadanka waqtigaas laakiin waxyaalo badan oo waxa jira taariikh oo aan ka qabtay wadanka gudihiisa aan ka qabtay way jiraan haddaan run ahaantii idin sheego wadanka intii anigu aan joogay xawtaaka waxa ka hor dhigay fikradii dadka keenay ma aha xawtaaka horteeda maxaa laga qabanayaa waxa laga qabanayaa guri weyn oo iyadu ay leedahay gabadha numberku wadnaha uga taagnaa warka waan yaraa wadnaha saas uga taagnaa marka waxa qeyray qaaday inaan yiraahdo xawtaaka maxaan u qabanaa xawtaaka waa inaan u sameeynaa meelna ugu halgamaan oo rag ugu halgamo oo dhalinyaradu ugu kacdo oo dadkoo dhan ugu kacaan inaan sameeyno anigu dadkii sameeyay baan koow ka ahaa garabkayga gacantayda baan ku soo ururiyay lacagtii lagu dhisay gurigaas oo aan maarto waa inta taariikho kaliya oo aan Soomaaliya anigu aan ka qaatay weeyaan wareerka iska daahaya Soomaaliya wax gaaro waqooyi iyo koonfur barihi waa in la isku daro waraabaha soo ordahaya wadnaha la jaaro walaala iswaayay wayinay isweeshadaan wixii waxdiidahana wadahadiisa loo maraa قال وقت إنه يجي أولاً وحنا بريئين تلك سعيدة أي هجامة تقول هاي أو هوش عن نقطة وروح لبران وحى فرحة إنه كربنا إنه ما تقف في عن يقف كلام وجود له سويتي هذا الناي شاري ده كان كل نور لأن ما المجال هاوس افتين ويه رنتي تاريخية إنه كربنا قف في عن هذه Soomaalidu dab ka tahay iyo qofka lugooyada ah oo muushaatiga noo soo gashaday waa inaan hadii la korayay yani isku miisaan inay noo ful maanta wixii ka bilaama inaynu kala garanno waa maal eedowi waana guul soo yeetay magaaladan hambal yaan leeyahay Siciido iyo tiimkii loo soo abaabulay fadhigan aad u qurux badan
inta markaan uga tago waxa weeye innaga guusha halkaan ka bilaabatay oo halkaan hadda aynu u taagannahay oo ah kan wax qabanaya iyo kan kale inaan kala barno soomaaliyana waxaa imaanaysa kan wax qabanaya iyo kan aan qabanaya in la kala bartana waa imaanaysa meel kastoo wanaag soomaali ay joogto ka bilaabato way ka bilaabanaysaa gudaha bannaanka haddii ay ka bilaabateen gudaha ka bilaabanaysa ilaahay waxaan ka baryayaa soomaaliya ma kala maarato soomaaliya waa qoys soomaaliya waa walaal soomaaliya waa isku isir waxa weeye haddii meel bugto meesha kale waa bugtaa hal qoys baynu nahay ilaahay soomaaliya qulubteeda inuu isu keeno waxa wax lagu noqon karaana waa soomaaliya shaakir kuma jiro waxaan soomaali ahaynna wax lagu noqonayo waxaan codsi u soo jeedinayaa dhammaan dadka guddiga ah ama qabanqaabiyaasha ah inay u sameeyaan qaab luuqadda deeniska ku qoran in ay ugu gudbiyaan ama ay maqal ha noqdo ama qoraal ha noqdee dadka dhallinyarada ah ee halkan ku hana qaaday kowda luuliya macnaha ay tahay waa maalinkii xorriyaddu ay soomaalidu ay qaadatay dadkaasna waa muhiim in la gaarsiiyo arrintan oo laga dhaadhiciyo waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan carruurta dhallinyarada hooyooyinka aabbayaasha dhallinyarada dhammaan ka soo qaybgalay kowda luuliya xorriyaddii soomaaliyeed waxaan leenahay waa maalin qiiro leh xaqiiqdana waxa weeye wixii hadalku uu ahaa nuxurkiisii iyo taariikhdiisii odayaasha ayaa ka hadlay anu hadda uma soo istaagin inaan taariikh ka hadlo laakiin dhiirigelin keliya un baan usoo istaagay maadaama aan ka mid ahay deegaanka magaalada aawus waxaan ku dhiirigelinayaa dadka in ay maalinka kowda luuliyo macnaha hoose ee xorriyad qaadashada ah dadka dhallinyarada ay u sheegaan halkan waxaan uga gudbinahayaa soomaalidii jirtay soomaaliya oo aan leeyahay qurbahaan ka soo dirahayaa qayladhaan culus waxaad ku qanci doontaanna waa soo qadimayaa qorshihii gumaysigu watoo qaar la fulinayay diyaanadii la soo dhaafiyey oo laysu qalabqaadiyo khatar baan ku sugannahay iyo inuu qaata kii haraye war intaad ilaahay qirtaan qaata waanadayo qoryihii iyo rasaasta iska dhiga waad qarribanteeno soomaalay isqabo maanta way qaraar tahay gumaystihiinna qaybshay iyo kuwuu qaarka naga siiyey qarankama sugaysaane waa qaada kii haraye war intaad ilaahay qirtaan qaata waanadayo qoryihii iyo rasaasta iska dhiga waad qarribanteeno soomaalay isqabo maanta way qaraar tahay qaaradda afrika soomaalibaa ugu qabweynayde maantana qaxootaynu nahay qaawanoo marane waxa qiimaheennii jabshay oo quustan ina geeyey qoloqolo u dirirkeenni iyo qaranjabkeenni iyo war intaad ilaahay qirtaan qaata waanadayo qoryihii iyo rasaasta iska dhiga waad qarribanteeno soomaalay isqabo maanta way qaraar tahay qaynuun dad kale kuu dhigay qaynuun dad kale kuu dhigiyo qaa'imiyo iiga qaran kuma helaysaana waa qaybiyo raro qadicu dariiq iyo jirrino mala qaneecaan war intaad ilaahay qirtaan qaata waanadayo qoryihii iyo rasaasta iska dhiga waad qarribanteeno soomaalay isqabo maanta way qaraar tahaye quwad iyo awood baan lahayn ciidan qiro weyne xabashidan qabjabin iyo kuwaan quursan jiray oo dhan qaaraan askara inaad sugtaan waa qarracan weyne soomaalay isqabo maanta way qaraar tahaye qabiil iyo jabhado waxay dhaleen qaatiliya tuug wax inooma qaban welina waa ina qasbayaan qur-aanna kuma socdaan iyo xadiis qaala nebigii war intaad ilaahay qirtaan qaata waanadayo qoryihii iyo rasaasta iska dhiga waad qarribanteeno soomaalay isqabo maanta way qaraartahay waxaan ka hadlaynaa wax kale maaha inaan ilmaheenna dhaqanka barno maasha allah oo lagu tababaro intay rihaano iyo dhegayso lahaayeen biyaansin iyo wax lamida marka taasaan uga jeednaa ilmaheenna diintana waa la baraa hooyay haystaan asluub leh xijaaban guriga joogta diinta barays mideeda kale waxaa maanta aan halkaan iskugu nimid kowdii luuliya wax kale iskuguma annaa imaan
السلام عليكم سلام السلام كأدبوا سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعادي عاد أفرح سنة هاي ما تنا كسوق من الحفلة يقول رئيسي وأوس مجال الذي أرجع لا يتاه يدك كذي أمر أقارب هذا أمر فرح سنة على كساماري وعشيق كنور إركض وقتها يا ربي يوم لقى عصاد كوهك وعاوني لها كان عاجسان كو عاوني لها وعنقا وعظيمك وكو قريا جوي كو بنانك جوي وحاهم ليسان مركا رك قربها سوء هذين إنا يميلا فرق قدر منك أي صدقوا أقلين إن قبلها وحلا السير rabaa halkan hambaliyay bogaadin inaan uga diro shacab weynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan madaxa sare ee hoggaanka Soomaaliyeed madane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa ra'iisul wasaarihiisa Abdishiid ra'iisul baarlamaanka Jawaari xildhibaanada bulshada rayidka ciidamada qalabka sida dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u dirayaa salaantaas oo ah xuska kooda May maalinta xornimada Soomaaliyeed 56aad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo aasay Soomaaliya inta ka bacdi waxaan salaani bogaadin u dirayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogto baahida oo qabta nabad iyo cadaalad higsanaya isbedel insha Allah wax walba maalin ba la gaaraa maalin bay maataa waxuun baa soo kordhay sidii loo bilaabay dagaaladii isku markii laga soo kaco la imaaday maamuladii kale intaas wax bay soo kordhiyeen waxaan kaloo salaan gaar ah u dirayaa dadweynaha degan Denmark gaar ahaan Yuland waxaan leeyahay aad baan idinkugu mahadcelinayaa sidii dhiirigelinta lahayd iyo wanaagga suuban aad noo soo jeediseen intaa ka bacdi waxaan leeyahay salaan gaar ah u celinayaa meediada SN TV Somali National TV uu hoggaanka u yahay Farax Yaasiin oo nooga yimaaday odensa waxaan leeyahay aad baan kugu mahadcelinayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله محمد وحن ربع إنهم بليانيا مدحويني حسن دولة الصومالية أو إذل بنوهم بليانيا هم بليانا كودي لوليو يا أنا إنك استوى محن كلها أي دب يعود عضي وحواي صون كيبان حجا صون كيبان حجا محن كلها دبنا نقول سمي ساس عودت بندب يعود عني إنه waxaan leenahay ilaahay sanadkii sanad hanoo gaarsiiyo dawladda Soomaaliya way dadaashay dadaal kale oo mudan si sameeyso waxaan leenahay anaga Denmark deganahay reer Denmark oo dhan waxaan leenahay guriyo sanad wanaagsan sanadkan koodii luuliyo waxaan rabnaa kulli sanadka soo socda la qaadatiin insha Allah waxaan hanbali halkan uga dirayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Ali Sharmarke iyo professor Jawaari waxaan u rajeynayaa dawladdaas in ummadda maanta ay ka saarto mugdigaas ay ku jirto oo ay hawsha ay qarannimada ay noo hayaan ay noo sii iftiimiyaan oo bulshaduna waa ku qanacsan tahay dawladdeedana waa ka warsugaynaa wixii go'aan ay qaadato oo ay noo gaarto waana ku kalsoonaa annagoo taageersannahay dawladdeena iyo dhammaan in aan helno dawlad midaysan oo buuxda ilaahayna hoo fududeeyaan leenahay xilka ay hayaan iyo dawladda in ay ku guuleystaan in ay dawlad sax ah oo meesha ka sii taabaqaada inay sameeyaan taasna waan ka codsanaynaa waana ku mahadsantihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo nagala soo qayb gashay xafladan So much.
harkan waxyeeladihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysow maa soo dhicine dahahan baqay sidan dhuufahan ahayo dhigahay qaraanka dhowrsanaye daaraharkan asagay dhinac galayaan ku dherarsabaysow maa soo dhicine What